Xulka ciyaartoyda kubadda cagta maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta galkii dambe dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka maamulka Galmudug. Ciyaartoydan oo ka soo qayb galay ciyaarihii maamul goboleedyada dalka oo martigeliyay gobolka Banaadir ayaa waxa garoonka diyaaradaha si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka, golaha wasiirada, ciyaartoyda degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhaweynta ciyaartoyda kadib ayaa waxa gudaha garoonka kula hadlay warbaahinta gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Gaal Casir waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yihiin ka qaybgalka ciyaartoydan ee ciyaaraha gobolada dalka asagoona u ballan qaaday ciyaartoyda inuu u sameynayo caawa kulan casho. runtii waxa waaye farxadda ay soo hooyeen ciyaartoydan dhalinyarada ah oo reer Galmudug oo wax lagu farxo oo wax lagu dayan karo loona baahan yahay dhalinyarada inta hartayna inay iyaguna ku soo biiraan oo ay xoog siiyaan runtii meeshaas waxa ka dhacay ciyaar wanaaga ka dhacay reer Galmudugna waxay kamid ahaayeen ciyaartoyda ugu fiican ay kamid ahaayeen anigu ciyaarta waa tago fiirsaday runtii say u ciyaarayeen waa arkayay waa soo dhaweynaynaa runtii ciyaar wanaagsan ay muujiyeen waxaana ka rajaynaynaa inay meesha ka sii wadaan madaxda iyo dawlad goboleedka Galmudugna waa garab taaganahay waana u ballan qaadnay in maaragtay aan ku taageerno oo aan garab istaagno hil iyo hooba wixii ay u baahan yihiin inaan garab istaagno waa ballan qaadnay sidaasaan u garab taagnaanaynaa sidii ay u soo bixi lahaayeen maaragtay intaan ka badan koobab ah ay u keeni lahaayeen labada koob hadda ay keeneenna oo orodada ay ku keeneen oo kii lagu ordaayay 400 iyo kii lagu ordaayay 800 labadaba waxa waaye wax lagu farxo waa runtii meel wax laga bilaabi karo ama meel wanaagsan oo runtii lagu farxi karo ayay gaarsiiyeen waxaan rajaynaynaa in isaga u ballan qaadeenba waqtiyada soo socda ciyaaraha dambe inay guusha koobaad ay keeni doonaan waana ka rajaynaynaa bismillaah kariim annaguna waa garab taaganahay waana soo dhaweynaynaa caawana waxaan u samaynaynaa casho sharaf haddii alla yiraahdo waa soo dhaweynaynaa waana garab taaganahay markastana waa u helin doonaa haddii alla yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin. ciyaartoydan Galmudug ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado ayaa waxa ay ka soo qayb galeen ciyaarihii maamul goboleedyada dalka ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaana halkaas ay kala soo laabteen laba koob oo kala ah kaalinta koowaad ee tartanka ordada gabdhaha iyo kaalinta labaad ee tartanka ordada wiilasha walow ay horyaalkii kubadda cagta sanadkan ay ku guuleysatay maamul goboleedka Puntland. Axmed Nur Maxamed Xasan Axmed Suudani, Jubaland TV, magaalada Cadaado.